السلام عليكم كسو دوادا kanaalkeena Som Universe fadlan oo mahadsan subscribe noo saar like dheh si uu muuqaalkan u gaaro dad badan oo sidaada kale u wanaagsan mahadsanid muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay qaabka aad u duubi lahayd qof ku soo waxay WhatsApp-ka ama adiga aad wacday qofkaas waxaan isticmaali doonaa application lagu magacaabo app call recorder waxaa kala soo degay Google Play Store-ka waxaad ku qortaa WhatsApp recording application-ka ugu horeeya ee ku soo baxa kaas dooro WhatsApp recording markaa qorto isaga ku soo baxaya waa ka mid kale oo guduuda leh aniga already wuu install gareysnaa programka soo kici marka hore open next hore u sii wad accept permission u baahan yahay permissionkan waxa waaye inuu duubo maqalka sidoo kale contactskaaga permissionkooda sii iyo sidoo kale wicitaanada caadiga marka laga soo tago kuwa WhatsApp-ka wuxuu kaloo u baahan yahay enable service installed service meesha hoose wuu xiran yahay u soo furo isagana waxaa kaloo ku haray inaad u soo furto notification mar walba oo wicitaan cusub ku duubo barnaamijkan sidoo kuugu soo dhaco meesha sare ee notification barka power management-kan skip iska dhe wuxuu kaloo ku weydiinaa location-kaaga kan optional waa skip waa dhihi kartaa xayeysiinta baag iska dhe marka halkaan ay ku soo galayaan hadday ahaadaan wicitaanada caadiga oo phone call-ka iyo kuwa WhatsApp-kaba abkan waa u isticmaali kartaa labada wicitaan inuu ku duubo wicitaanada caadiga oo phone call-ka iyo kuwa WhatsApp-kaba wuxuu ku leeyahay speaker-ka furo ee samaacadda si uu maqalka wicitaankii aad duubtay quality u yeesho wuxuu kaloo ku leeyahay telefoon walba ma support gareeyo duubitaanka wicitaanadan haddii uu ku shaqayn waayo feedback inoo soo dir adigoo raacinaya teleefankaaga modelkiisa iyo versionka muuqaalkiina intaas ayuu ku egyahay wabillahi tawfiiq